dalka Turkiga waa dad waalehna oo aan ognahay dalkii markii ugu horeysay oo dalkan uu khatar galay oo waliba maalmihii 2011 abaaraha dawladda Turkiga waxay noqotay dawladda ugu horeysay ee Prime Minister-koodu hadda madaxweynaha Erdogan uu halkan yimaado oo ah mas'uulkii ugu sarreeyay ee Soomaaliya yimaada taasoo xaqiiqatan Soomaaliya tusay caalamka oo wixii ka dambeeyay dawlado badan iyo madax badan ay halkan yimaadeen waxaan leeyahay abaal waad ku maasantihiin walaal jiratihiin ummadda Soomaaliyeedna idin loobi mayso waxaan rabaa halkan inaan ka sheego inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan lagu xiraayo tababarkii dufcada ugu horeysay ee ciidanka halkan lagu tababaray oo hadda u jeedo quruxdooda iyo sidoo u habaysan yihiin tababarka haystaan ay tahay runtii wax ummadda Soomaaliyeed ee u ay doonaan quruxdan waxaa ka dambaysa waajibaadka aad leedihiin waxa weeye difaaca dalkiina dadkiina iyo diintiina oo kulligeen wax alla wixii mas'uul ah aan dhaar u marnay taasoo ay tahay inaad naftiina iyo dhiiggiina u daadisaan waajibaadkiina waxa weeye inaad muujisaan wadaniyad oo aad dalkiina u dhimanaysaan oo aad difaacaysaan badihiisa xuduudihiisa iyo hawadiisaba waxaa lidinkaga baahan yahay inaad ogtihiin astaanta qaranka Soomaaliyeed waxaad tihiin wiilasha aan ku seexanayno oo aan doonayno dalka inay ka difaacaan cadawgana haysta oo dhibka nagu haya oo ummadeena dhibaya oo caruurteena iyo cid walba maalin cad ku leynaya oo xasuuqaya jiradka ku xasuuqaya waxay ummadda Soomaaliyeed ka sugaysaa inaad difaacdaan waxaa lidinka rabaa inaad la timaadaan asluubteeda inaad la timaadaan discipliinkeeda inaad la timaadaan oo ay tahay mid ugu horeysa marka laga tago wadaniyadda waxa ciidanku uu ku kala dambeeyo waxa ciidanku ku shaqeeyo waxa ciidanku uu ku dagaalo ciidan aan asluub lahayn ciidan maaha waa lidin og yahay inaad tihiin geesiyiin cid walbana waa idin qirtay laakiin haddii ciidanku uusan lahayn asluub geesinimadiisu iyo qalabku haysto waxba tari maayo waxaan idin leenahay oo muhiimka ah iyada naftigeeda daacadnimada inaan laga tegin haddii aad leedahay wadaniyadii asluubtii aad leedahay waxaa loo baahan yahay inaad hufan tahay oo waxa lagu dhigtay oo ay ugu yartahay qoriga haysto inaad ummad u hayso maxaa yeelay adigu ma lihid waa lagu aaminay waxaa la rabaa inaad ummadda ku difaacdo waxa weeye waajibaadkaas waa waajibaadka idinku aad leedihiin waajibaadku ay madaxda leedahay waxaa la yiraahdaa askari xun ma jiro laakiin waxaa jira sarkaal xun maxaa yeelay ficilka askariga waxa weeye waa ficilka sarkaalka ama madaxdiisa madaxduna sarkaalka madaxdu ah kuma sinneed waxay ku siman tahay taliyaha gaaska taliyaha guutada taliyaha ciidanka iyo taliyaha guud oo anigu waan ahay waxaa loo baahan yahay in anagu nafteena waajibaadkeena gudanno waajibaadka aan leenahay waxay tahay inaan bedelno qaabka loo fakaro haddii qaabkii hore oo muddooyinkii la soo dhaafay oo aan ku jirnay duruufaha keed aan u fakaraynay qaabab guraacan oo Soomaaliya adduunka ka reebay oo aan niraahno qabyaalad ama qabiil ama beelo waa inaan u fakarno qaab qarameed inaan u fakarno si aan ula tartanno oo aan ula jaan qaadno caalamka qaranku wuxuu yahay marka qaabka qaranka loo baahan yahay inaan u fakarno oo madaxdu ay tahay inuu fakarto oo anigu aan ugu horreeyo inaan ka bilaabo waxaan halkan u fadhiyaa ummadda Soomaaliyeed idinkuna waxaad matalaysaan ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed qof qabiil u fadhiya ma jiro xafiis qof qabiil matalaya ma jiro qofka markuu dhaartay oo calankii uu ku xirtay gacanta midigta ama bidixda oo u dhaartay qaranimada Soomaaliyeed qabiil waa ka fogaaday wax la isku dhex wadi kara maaha marka
waxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta ah xil walba ha hayaan in ay waxaan ognahay waddankan maxaan ku rahaa waddankan gaarsiiyey ay tahay qabyaaladda iyo waxyaabaha guraxan waa in aan u gudubno qaab qaran inaan u gudubno oo qofku uusan u arkin inuu matalayo beeshiisa uusan u arkin oo uu matalayo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan haddaan ku soconno qaabkii hore ciidankeenna ma dhismaayo waxaan ognahay inuusan ku dhismayn qaab qabiil uu ciidan ku dhismayn saas darteed qof walba mas'uul ah waa inuu ka fogaado qabyaalad iyo wax kasta oo na kala qaybin kara annagana waxaan u nahay runtii tusaale anugu haddaan xafiiskay ka bilaabo iyo inta ka hooseysa waxaan aaminsanahay askarta iyo meelaha kale inay ku dhaqmaayaan dhaqankaas wanaagsan waxaa loo baahan yahay dhaqankeena inaan ku darno aan ku xoojinno inkastoo aan dad islaana inaan ku dhaqanno islaamka maaha kaliya inaan sheegno islaamku musuqmaasuq ma ogola level kasta ha lahaado ha ugu sarreeyo madaxweynaha iyo idinka oo maanta ka qalin jebinaya xafladdan musuqmaasuq waa wax xaaraan ah musuqmaasuq waa wax dowladaha dumiya waana waxa meeshaan lagu hayo hadda annaga oo caalamku noo aaminsan yahay inaan nahay dad xun Soomaali waa dad wanaagsan waa dad qab leh laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ku dhaqanno diinteena suuban islaamka ah oo naga xaaraantinimeynaysa qof walba inuu xakameeyo naftiisa oo waxa loogu talagalay maahe wax kale uusan hubguriyeen taasna waxa laga rabaa anaa ugu sarreeya xafiiskayga inuu ka bilowdo iyo intii iga hooseysa fakarka saddexaad loo baahan yahay in la bedelo waxay tahay waddaniyadda oo aad moodo inaan ka hormarino wax walba waddaniyaddu waxa weeye macnaheedu Soomaaliya waa dal xor ah muddo badan baa madax waxana laga gelinayay Soomaali waa la haystaa Soomaali lama haysto Soomaali waa dad xor ah waa dal xor ah annaga loo baahan yahay inaan la imaanno wixii aan caalamka kula tartami lahayn annaga loo baahan yahay inaan la imaanno midnimadeeda ummad qaybsan ummad dhibaato isku haysa waxa weeye waa loo talin macnaheedu waxay tahay annaga laga rabaa inaan wax alla wixii khaladkeena ah aan saxno oo igu horeyso midnimadeena taas hadday timaado Soomaaliya waxay diyaar u tahay waddan walba oo caalamka ah inay la jaanqaado oo ay la saaxiibto oo aan naloo tilmaamin waddankaan la saaxiibi lahayn iyo waddankaan la culoobi lahayn taasna anaa ugu horeeya oo leh Soomaaliya waa xor dadkeenu waa xor dalkaan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dana Soomaaliya ka shaqeynaya waddan walbana waxaan rabnaa inaan macaamil la samaysano annaga danaheena naqaana danaheenu waxay tahay dadkeena inaan horumarino dadkeena iyo dalkeena qabkii lagu yaqaanay ku soo celino sidaas darteed Soomaaliya xiriirkeeda dibadda cid walba oo furan yahay cid walbana waa soo dhaweynaynaa walaalayaal saddexdaas arrimood haddaan iska xakameeno saddexdaas arrimood haddaan xoojinno qabkii Soomaaliyeed iyo wixii lagu yaqaanay way noo soo noqon inaan u fakarno qaab qaran oo aan ka gudubno qaab qabiil iyo wax la mid ah oo danta guud aan wax walba ka hormarino inaan nahay dad islaana oo ku dhalan islaam inay sidee taan ugu dhaqanno oo wixii naga xaaraantinimeynayso oo xun aan iska leexinno waxa noo wanaagsan diinta ay noo sheegayso aan aad uga shaqeyno waddaniyaduna waa tan ugu muhiimsan iyada naftigeeda oo labadaas qaybood aan hore u sheegay ku xigta dadka Soomaaliyeed muddo dheer iyo dhibaato mareen waxaa moodaa inaan isu sheegno in laga adkaaday Soomaali lagama adkaanin qabkeenu waa nool yahay dadnimadeenu waa nooshahay inaan ku adkaysano dadnimadeena iyo dalnimadeena idinkaa idinka rabaa inaad qaybtiina iyo waajibaadkiina aad qaadataan annaguna kuween aan qaadanno idinku waajibaadkiina wuxuu yahay inaad difaacdaan dalka iyo dadka iyo diinta Soomaaliya soo saas maaha Soomaaliya inaad difaacdaan dalka iyo diinta iyo dadka annaguna waxaa balan ugu ah inaan adkeenno qarannimadeena waxaa balan ugu ah in Soomaaliya noqoto dal xor ah oo aan xoojino wadaniyadeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh